السلام الله عليكم إذلهان تيم بخيارته ودنا حريدا إيميل كاستي ودنيا كجوكتان ومركلي حبيتني فاقدادا وحنا داوضيا البرنامج كان ديرada ku saari doona wararkii ugu dambeeyay inaga soo gaara dalka Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda Eritrea oo dhoolo tus la yaab la ku soo bandhigtay dalkeeda iyo gabi ahaanba waqooyiga dalkaasi Itoobiya saraakiishii ka hadlay goobahaasi bandhiga lagu soo bandhigay iyo waliba waxyaabaha ay ka hadleen oo u qoysgoynaya dalka Itoobiya waliba xaaladaha ka taagan aan iraahdee waqooyiga dalkaasi Itoobiya waxa kale oo daawadayaal barnaamijkan ku qada dhigi doona xogaga faano oo sheegay kifla doorka ambaba xirada ciidan ee 78 in ay soo afjareen wax allaale wixii hubeeyaalayna ay gabi ahaanba gacanta ku dhigeen araga kabadhe oo madaxweynaha deegaanka aan iraahdee amxaarada ayaa sidoo kale ka daba hadlay waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray laftigiisu ciidamada makalakayaaga isagoo sheegay in dagaaladii 24 saac ee u dambeeyay ka hulcahaya deegaanka amxaarada ay iyagu ku gacan sareeyeen haddaba sheegashada labada dhan iyo wayliba waxyaabihii ugu dambeeyay iyo xaqiiqada ka jirta deegaanka amxaarada waynu ku qada dhigi doona dhanka kale dawladda deegaanka Soomaalida ayaa la soo qafaashay in ka badan 90 iyo dhow dhalinyaro oo laga soo qafaashay degmooyinka dawladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo ku dhacay imtixaankii dugsiyada sare waxaana la tilmaamayaa in qasab lagu ciidamaynayo sida ay waalidiinteed ama waalidiinta qaarkood ay noo sheegeen oo aan xiriir kala duwan la sameynay dhanka kale warbaahinta dalka Mareykanka ayaa soo bandhigtay sira ku wajahan dalka Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ku jiraan macdan badan gabi ahaanna aysan ka baxaynin aan iraahdee ama istiraatiijiyadooda ayna ka laabanaynin dalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday aan iraahdee koolbakis dhanka lacagaha lagu kala wareejisto taasi oo haatan dalka Soomaaliya lagu tilmaami karo fossil ama wixii la oran jiray waa beec dalka Soomaaliya haddaba xogii ugu dambeeyay ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doona Professor Abdi Ismaaciil Samatar oo maalintii shalay wareysi bixiyayna waxa uu ku tilmaamay in Xasan Sheekh Maxamuud uu noqday lamood noqon sawayday dalka Soomaaliya ayaa loo yaabaa dhanka kale waxaynu daawadayaal xogaha ku qaada dhigi doona madaxweynaha dalka Kenya xilli uu booqasho ku joogo dalka Mareykanka waxa uu sheegay in aysan AMISOM ka baxaynin gabi ahaanba dalka Soomaaliya taasi oo ku tilmaamay in kooxaha ka dhurdurdeeya koonfurta Soomaaliya argagixisada ay gabi ahaanba la wareegi doonaan haddaba arrimaha yaa u sababa isku qoofalan ee hardanka Soomaaliya loogu jiro iyo xaaladihii ugu dambeeyay ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijka alaaba ila darandooriya ninka inta badan ka faalooda xaaladihii ugu dambeeyay ee guud ahaanba Itoobiya iyo Geeska Afrika Dr. Shide oo aan wax badan ka weydiin doono xaaladaha murugsan ee ka taagan dalka Itoobiya iyo guud ahaanba villa oo ay ku habsatay diiratada damjadid soo dhawaada mar kale iyo xubinteena faaqidaada Dr. Shide soo dhawow waa dhawaay saaxiib waxaynu ku bilaabaynaa bal Eritrea inoo dambayse waxaynu ku bilaabaynaa hadii ay ku samoogol yahay faanada way hadashay oo kifla doorka ugu weyn waa marka yaani kifla doorada la tirinayo ciidamada makalakayaga ay ku leeyihiin deegaanka amxaarada ay la wareegeen waa sida ay sheegayaan marka wax alaal wixii sanad military iyo wixii kaare ama beebe ay yaaleen waan qaadanay bay dhaheen sidoo kale laba xero oo xeradaasi laga ilaalin jirayna gacantaana ku dhignay bay dhaheen marka madaxweynaha deegaanka amxaaradana waa uu hadlay araga kabadhe waxa uu sheegay in arintaasi waxba kama jiraan tahay sidoo kalena saraakiil fara badan oo faana ay ku laayeen dagaaladii holaca ah ee 24 saac ka socday deegaanadaasi aad iyo aad badan mahadsan tahay Colonel Frogodow waa dhab deegaanka axmaarada waxa ka soconay horta dagaalada alaaga oo mar kale dib uga xurtay ama la dhigi karo xoog faana ayaa soo rogaal celiyay waa waxa keenay qaylada iyo kuleylka inay hal mar warbaahinta dalka Itoobiya oo dhan ay ka kala hadlayaan saraakiil aad u tiro badan ama ka soo jeedaan deegaanka axmaarada ama xooga mucaaradka dagaalka kula jira dawladda noqdaan ama dhan kale saraakiisha militariga Itoobiya ha noqdaan gobolka axmaarada waxa ka soconaya horta dagaal aad u culus oo dhaxay faanada oo maalmihii ugu dambeysay qabsanaysay magaalooyin waaweyn oo gobolkaasi ku yaala laakiin waxyaabaha la yaab kale waxa waaye in kifla doorkii ugu weynaa ee deegaankaasi ku yaalay waa kifla doorka 78aad wasida uu faara ay warbaahintooda ay ku sheegeen afayeen u hadlayay uu sheegay in ay gabi ahaanba soo afjireen wuxuu yiri waxaan gacanta ku dhignay hub aanu ku sii dagaalami karay bir sanado aan ku dagaalami karo ayaa gacantana soo galay bir oo kifla doorkan wuxuu ah kifla doorkii ugu hubka badnaa buu ahay militariga Itoobiya uu ka isticmaalay gobolkaasi marka sarkaalkaasi waxa uu sheegay faanadaha inay ciidamadoodu
ay hayaan maxaabiis aad u tiro badan inay saraakiishii deegaanadaasi joogay ama hogaaminayay ay dhammaan qudh ay ka jareen inay maartay wixii hub iyo taangi yaalay beebeeyada halka yaalay inay gacanta ku dhigeen hub kale casri ah inaan hayna buu yiri oo soo bandhigi doono dhow aan la wadaagi doono bir warbaahinta iyadan aan soo bandhigi doono marka faano waati dhawaan sheegtay inay la libeela iyo guud ahaan deegaanadaasi ay qabsatay gobolka Woolona inta badan ay la wadaageen ilaa Wooldiye iyo dhulkaasi iyo Dheesi iyo magaalooyinka muhiimka istiraatiiji ama central ahmar la dhihi karo inay gacanta ay ku dhigaan ay sheegeen laakiin waxa yaab leh inuu ninkii areyka badhaha markii saraakiishii ciidanka juuqdoodii la waayay ama ragii furunta joogay la waayay la liqay wax warbaahin ay wareysatay iyo wax hadlaba la waayay inuu areyka badhantu uniformki soo xidhay uu yiri ana afhayeenkii militariga أنا أفيك ملتريا وحنا كور بحنا يا حالة الدين كحمارة دبتك جرتا. وحنا كهي ورباهي تيتوبيا مد حبنان يمد كلو أدو قادر دقيسا مدحوينها الدين كأمحارة أرجع كبده وكتل ماما يا إنه أسقو مانت أبصوب حيدا كأبيه. ها هي. أنت أحرك بدأ أبيه حرية أمان شو ذوق سارة. هي. وحيري ما يعني هلا يبريني كهربني. هي. يعني هلا يبري. وأبدي لقي لبعض بكتل ماما. ها. دام نكن ميليشيات مكت عبدي مكت مرسول ميليشيات مسكان مكت. ميليشيات سوقهم صدر العين مكت. مركا أريك بدأ أبيه هروب شو وحيري نك أعرفني أنا هلا بيرو وحمارنا نونلاين أيه عنده وضعنا ما أرتاي هوستل سوس قلني أيا يمد بيري أريك بدأ ما أنت يونيفورم صحيح صحيح يونيفورم ميليشيات فعلا شيء ميليتري ولا جاي على مكتسوق ميليشيات كعقلي نيجي وعلين إنك مصطفى ويرجع مرة رجع المركز قرب سعان أريك بدأ واحد لي وحاول يري دجال كم حكوا بعياد قدام بيد عاي سيدا قولها إفارة شغلته كهذي وحير إذا مض وحير أفر لا تنسى على صوت عفي دجال الله وحي جلهم بالمالية وجمعها لسولتي وكنت المام حقوق حق جرة ومالك لا جسوه بي أنا دلك سويرنا إنه كدون يوم بيقول إنه كعنت دجال حمارة كل جان تولد أنا يكفر بعيان لكن ويل هلية يبرو يتوبيانا أيام نبر كودك تبيري ونحضر وحدي وأنا ربيتان كودي وان فشلنا يبري ولو وان تبيني بكفانا وحيري deegaanka axmaarada weeraan 200 iyo xiri iyo 40 iyo waxaas biiri oo degmo waayay oo yu kor dhaafaya biiri wuxuu yiri boqolkiiba 87 waan xoreyna buu leeyahay degmooyinkaas laakiin waxba kama jiro hadii basaldhigi ugu weynaa ay faana ay ku durbaantumatay oo bartamiisi istaagtay muuqaala ka duubtay oo birgeedka ugu weynaa halka uu yahay حقي جوجان إذا ما دقمون كاس كعنت كله ده واحد كم جرو أصلا ما تعرفيانا هم اللي ترجع واحد ضيا ويرجعوا كحماد حكت وجودن بيسي ما كيف أنا أي بايس يقولك أي قصتي لحد كلية يقولك أي لو ورجال ما كيف بايس يدك إثيوبيا نص أحياء بعيمت بريء بوشة وحالة أكون لما لا ليه فأنا يدسوا سوق ليسيو ويسوج بزبوندوين كيوا وينا يدفع يوم بيسوج بستبالين هوبكي يوتانجيد أنا كحيرس أساس على markii baa areeka badayay anaa furta jooga war aw saraakiish dagaalka hogaaminay ciidanka lugta waxa uu aaway furta jooga anaa hadlaya anaa jooga anaa uniformka qoriga wata degmooyinka intaasan gacanta ku haya dagaalkan uu sii soconaya guushan anaga ku taagan biir dee wan maleeshiyada dee isna saacadiisu dhimanaya laakiin areeka badda wuxuu qancinayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo eedo waaweyn ay dul hooganayaan faragoodu aan ku raaciyay maalmada shalay Itoobiya saxiix weyn ba ka dhici gaaray ninkii Ahmed Shidaha ee baarlamaanka u yeedheen waxay dhaheen ka warbixi xaaladda dalka ee qaybta dhaqaalaha maaliyadda guddiga dabagalka baarlamaanka ayaa u yeedhay aafar ninka Ahmed Shida wuxuu yiri hal shilin oo lacag akoonka dawladda ku jiro wax dalkan lagu dhaqaajiyo lama hayo runta ma been anu saas ay hayaa biri dalkan wuxuu dhaqaalaan bal la degtay gobolada ay dagaaladu ka socdaan darteed ayaa wax soo xarooday ma jira biri wuxuu yiri dalka Itoobiya biri lacagta wuxuu yiri sanadkii hadda soo xarootay waxa soo xarootay bir 300 waxa soo xarootay biri waxa soo xarootay 331.1 billion oo Itoobiya waa 331.1 billion oo bir baa soo xarootay biri oo dalka Itoobiya lacagtaas soo xarootay biri meeqaan isticmaalay biri وميزانية سجالك بلاد لعكتها صح حروتي بيري ما كان استعمال بيري لعكتها الاستعمالها كدر باش المقطع ذات تريبه زمان وحال استعمالي 46 محل استعمالي 461.3
ولا بتجبر بكبدن تاي لعقت الاستعمال بدن marka wuxuu yiri lacagta la isticmaalay iyo lacag soo xarad marka la bandhigo tan la isticmaalay baba ka badan bu 3 jibaar tan fooba ka gacaysa tiin 3 ba ka gacaysa oo bilyan waxa la isticmaalay 462 bilyan point 1 tiri baa la isticmaalay marka wuxuu yiri hadaba lacagta isticmaalay maxaan ka tagnay yiri inaga wuxuu yiri hatta xaabxaabkeen iyo kaydkan cunay yiri marka wuxuu yiri dalka akoonadii zero saxada ay garaacayaan buu wax lagu dhaqaajiyay gudigiisa soo sheegay dabagalka gudigu wuxuu yiri dalka dagaal ba ka socday buu gobolka Axmaarada lagu tashanayay buu wax ka soo xaroonay male nooc doon waxa ma ta warshad way soo xirmaan tigrayna daayay iska tigray dhowr sano goor tagtay yaa tagtay urumiyana wuxuu yiri haaf boqolkiiba ayadana 70 way tagtay oo jimhadaha waxba kama soo dadku waa dad la dhacay dagaal iyo jimhado deegaanada kale wuxuu yiri marka hore wax weyn kama soo imaneen deegaanada ugu weyn saddex wadamada warshadaha la goboladaas marka wuxuu yiri dalku zero ayuu garaacay sagxad ayuu garaacay marka wuxuu yiri dalka Itoobiya waa loo yaaba arintaasi markuu sheegay ayaa waxana Ahmed wala soo hadlay xil waanan yijibsi wax kala sheeg biri marka Ahmed wuxuu soo rogay in dawlad deegaanada dalka ay isku filaansho sameeyaan ayna dawladda ka sugin miisaaniyad ka imanaysa waa gartay qolaba been ay shaqaalaha dhaqaalaha mushaarkada bixiso dawladda ay wax ku soo qabto dawladda dhexe akoonada wax ku soo shubto waan garanay Amxaarada iyo Abiyees cunay waxba ku sii dheeraan meeno kulay waxa weey 24 sac dagaalkooda iyo qubqacdooda maba dhamaataba wayna dumaysaa nin ku farxa iyo nin ka maartay kan xaba Itoobiya waqooyiga ay ka dumaysaa waqooyiga ay ka dumaysaa way ka dumi jirtayba waxba inta u sii dhaafmayno nimankii la oran jiray Eritreanka ee gaagaabta ee maxaan ku dhahay anigu waxaan ku tilmaamay Eritreanku inay ma garanaysaa hil Soomaaliyiin laakiin cid ka faa'iideysan lahayd baa meesha joogin cid ka faa'iideysan lahayd yaan meesha joogin waxa la yiri nin maxaan ku dhahay beelaha jarir weyna yaa duqoobay waagu show yaraana laayaan buu ah waxna laga yaabo nin laayaan aho xaga dumarku wanaagsan buu ah magaasoo arkasho mid ma garanaysaa inta dhexdu taa ka tahay af madow oo hadee uu isqalcunayso kubaala ku yaalaan khatar u arka magaasoo hadee waa kane kuma dari kare yaa makawde Itoobiya kala tagtay Eritrea kan maxaan ku dhahay geeska Afrika inay siyaasad military aqli iyo ma garanaysaa dhaqaale ku hogaamiso doonaysa dadkii ka faa'iideysan lahaay Soomaaliyeed ee leaderka ah awayhad lama hayo Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Mareykanka si ayada buug ay soo saareen bal qaybta dambe oo xogo iyo la yaab la ay ku jiraan waan ku qaada dhigi doonaa Eritrea 24 maanta oo 24 bisha ay tahay May dabaaldegi ciidan hadda koor aan ka waranay ayay ku naaloonayaan laakiin waxyaabaha la yaab kale ee maxaan ku dhahay warbaahinta qorays waxa kamid ah in waqooyiga Itoobiya laga xusayo ayaga laftigooda deegaankii la oran jiray warqaytar in ayadana ay ka socoto dabaaldegeedii maxaan ku dhahay ciidamada dalka Eritrea madaxweynaha haye wakaas Eritrea horta maanta ay dabaaldegaysaa baraha bulshada wad ka arkataa waxa ka soconaya iyo dhulka Eritreanku ay ku xiriiraan Itoobiya maanta Eritrea waxay dabaaldegaysaa inay markii ay ka xorowday dalkaas Itoobiya ay xusaysaa marka xuska wuxuu ku soo beegmayaa ayadoo Eritrea ay ku sugan tahay gudaha Itoobiya Eritrea awal hore waxay ku xusi jirtay gudaha dalkeeda ay ku dabaaldegi jirtay laakiin maanta waxay soo keeneen dhulkii warqaytar iyo dhulkii waqooyiga Itoobiya gacanta Eritrea ku haysay in shacabka Itoobiya soo kaxaysay oo ugu hor khudbadeynayaan saraakiisha Eritreanka cadawgeenu waa Itoobiya adduunka cadow kale kuma lahan inagu maanta anaga maga nooti idinka Ethiopian anaga ayaan maga nooti gacantana ku jirtaan waxaan sheegnaa waa inaad liqdaan sida kaniiniga dhanka Eritrea warbaahinta inkastoo aad u xadidan tahay haddana waxa la yiri kuwii hore waxay kaga duwan tahay baa la yiri maanta oo kaliya cirka iyo dhulka iyo badaba dhoolatus military aan horey loo arag iyo hub aan horey loo arag ayay intaba soo bandhigay Eritreanka way jiraan haye horta ciidankii Eritrea dhoolatus kala duwan bay sameeyaan Eritrea saarugna bad bay leedahay dhanka badana ciidankeedu tayo fiican ayuu leeyahay badda dhoolatus weyn bay ka sameeyaan maraakiibta quusta iyo kuwa maartay doomaha dheereeya iyo kuwa hubka culus sida dhammaan iyo kuwa ruushka weyn ruushka xataa dhoolatus kala sameeyay maanta dhanka badda hub waxa ku soo bandhigtay Eritrea oo gibahaan Itoobiya iyo
يعد كستبو قوس جوينيس يكسو بنكتي وكانوا يوم وايد قد مسيم روش مراكب ولا دجال إن إريتري كسو حرنيين هشيز وحونا وها إريتري روش جلنا وجاشمبور هبوها ورانك بدها سوكر عيدن كإرك إريتري ولا تسوي حي سمانيان ديارها قماتي وكعاء الميلتري نوع والبي ديارها قد ما وعسر أيضا صوب بنديان وهو ذا تن أيضا محقق عي قيق بحق على كنا وإثيوبيا مكتسبة نيو كورنيل كان وبول حافتين بدنيا ما أنت هذا سوق عقف ميلو لسه يستاج وحنا سوق هذا إريتريا ودولة سكورتيو آد وهذا جوا سرتيو آد بيقرصونته إريتريا واحد قرصته يواحد موضع اسمه واحد قرصان بقولك إريتريا حكتيو بقولك سجاش يشن وقرصونته إثيوبيا لكن أبي أحمد ما تمسكوش القرا ومسكوش كده عشان قرا وربعين ولا جارك ولا شيء أي مسكوش قرا وكده عشان قرا دي ما فهمت لكن إريتريا لو ما قلنا يوحس إريتريا مركب ما أنت عايز أوبر نقطي هو بعسرية ديارها عينك الدبابات زمينها دارته ماشي هو روش إيو شينا موين وحكى ليش هذا ما قمناش ماشي وحكى سبحانه horta sidoo bal saraakiisha khudbadahoodii horta hadda ay socotaa marka ilaa galabta uu socon doona oo de maartay barnaamijku uu bixi doono dabaaldega iyo hawlahan kala duwan iyo waxa socon doona marka bal insha Allah ila bari saraakiishu waxay ka hadleen madaxweynaha dalka Eritrea khudbada wuxuu kaga hadlay meelo fara badan buu duco taabtay oo maca Soomaaliya ay kamid tahay marka bal nala socdo insha Allah wixii uu maartay uu madaxweynaha ka hadlay waa inuu soo turjumi doona waana kala socon doontaan haduu rabbi idmo bartan aan ku leenahay YouTube-ka shidow dawlad deegaanka Soomaalida dhalinyarada inta la eg baa la soo qabqabtay oo akuwi imtixaanaadka ku dhacay maxaa laga rabaa horta farqadu waayid u dimis qorshe waxa soo wasaaraha Itoobiya wararkeen horna ku sheegnaan maleynaya oo maalmo dhawti ka dhawaajiyay uu sheegay ardada imtixaanaadka ku dhacday inay shaqo hayaan dhalinyarada wuxuu yiri fasalka 12aad ku dhacday ilaa heer jaamacadeed aan gudbin dhammaan wuxuu shaqaan haynaa waana kala duwan wuxuu yiri dhalinyarada 18 jirka yar ciidanka cirkan wadna wixii ka weyna waxaan wadnaa ciidanka lugta militariga taangiyadii hubkaas culus ayaan wadnaa biiri marka qorshihii abi kuma ekayn oo kaliya Itoobiya kore ila deegaanka laga adeegay deegaanka Soomaaliya horta adduunka Itoobiya sharci kasto oo la ansixinayo maxaa deegaanka Soomaaliya lagu tijaabiyaa waxaan ogeeyay ciidamada Libyos kala dalkii in deegaanka Soomaaliya lagu tijaabiyay inuu ka dhaqan galay dhaqan sharci kasto Itoobiya la dhaqan gelinayo deegaanka Soomaaliya ayaa laga bilaabaa dhalinyarada Itoobiya kore jooga de mar hore baa ku kala biireen jamhadaha iyo kuwo de hada kuwa tahriib soo qorsheen iyo kuwa dagaalka cid yar ba ku beeraysa oromada iyo waxaas mooyeen dad yar ba ku beerayeen deegaanka Soomaaliya ay barnaamij ka bilowday abi Ahmed wuxuu yiri dhalinyarada 18 jirka dhamaan la soo xareeyay imtixaanaad ku dhacay dhamaan la soo ururiyay xariiq ciidan furayna deegaanka Soomaalida barnaamij ka bilowday degmooyinka laga hida xamaro salaxaad ilaa deegaano badan oo ilaa sagag iyo أو ديجانا بدنا نركز قبل كده نكاج حاجة ولا gas إلا قبل اللي جاري حاول قلنا عيد ما ذيك ولا شروا حالة إيش سجاشن اللي يركب بدن إلا جسوا حري اللي جهدا إلا حمراء إلا سلاحات نروح على جسوا خبط ورنا يردي سكولة سكندري يكون عيا إلى جين وارد كذا قيله وحلا ورنا هو يريدين وحما تمر قنقرة إن لو ويجيني لقوم ويجيني أنا يردي وحلا جسوا بحي حري عيدك يا جسوا بحي مال الله وضعنا ساعدنا ما قرر وارد كولودي حتى الموضوع أركان حنا الله ما يحكي أبينا يتلفوني وربان كوشة هاي هلكا وربان كلها من هاي لبان وكلا قاد هاي لبو يوكلا قاد يانو كلا قاد هاي لبان وكلا قاد يو حدي قاب كي هرقو يحي ee wixii baarama lagu shubi jiray wixii maxaan ku dhahaa tigraga markuu dagaalka socday 500 wiil baa la geeyay ka soo dagaal fiican ay gelin halka la geeyay wixii iska xaabada ahaa ee Soomaali shirdaamta waxay Ethiopian ku dhigi jireen Soomaali macawisleyda ku gur ay dhigi jireen ee dabka lagu guri jiray haday tahay arintaasi waxaan uga digaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed waayo kuwii hore wadadii ay mareen umbaad maraysan Ethiopia way ku xaabeen xaabada kugu guri dagaalana ka socdo waqooyiga Ethiopia burburaysa xaalkeedu masalana waa il daran tahay waxyaabaha iyo dagaalada socda la kaga faa'iideysan hadii nooca ay tahay waxa weeyaan hadii eebay ku sameeyo gol yahay dhalinyarada waan uga digana waana khalad dawlad deegaanka Soomaalida madaxda halkan naga dhigaystaane iyaguna waxa weey waan oga hadii eebay ka sameeyo gol yahay dhalinyarada Soomaaliyeed
haddii mustaqbalkoodii iyo waalidiin baa dhalay hooyooyinkoodu waxa weeyaan 10 halaad iyo qori baa laga bixiyay ha ku ciyaaran sida amxaarka wicilkii lagu dhalay ma garanaysaa darbi jiifka ma aha taas horta waa taas mid kale soo hadhay arrin kale haddii ay soo baxdo anu waan soo dhaweynayaa arrinta kale maxay tahay abiye nimankii la oran jiray amxaara isma hayaan wala socoto maanta dagaalada xul ahaya amxaaro iyo wuxuu u dhaxeeyaa oromo oo maanta hogaanka dalka Itoobiya Tigray awal hore isma salaameeyeen waan gartay Itoobiyana waa qoomiyado waan gartay qoomiyadaha ahaatee maanta waxa uu is leeyahay saaxiib dhow baad kala dhigan kartaa waa Soomaali abiye marka haduu hal garwaaqsaday waa soo dhaweynayna haduu hal garwaaqsaday saraakiisha sarsare ee dalka Itoobiya ciidamada makalakayaaga waxba kuma lihin dawladda waxba kuma leh talada go'aamada ciidamada ama federal police ha noqoto ama ciidamada makalakayaaga ha noqoto dawladda deegaanka Soomaalidu waxba way ka mareen waxba kuma leh meelaha looga tariyo logistic bayna kula haynay maxaan ku dhaxay bayna kula hayn sirdoon bayna kula hayn magac bayna kula hayn talada meesha lagu gooyeen waxba kula hayn ciidamada cirka sidoo kale waxba kuma laha waan gartay hadii marka Abiy Ahmed uu garwaaqsaday war had isma haysaan Tigray iyo nimanka la yiraahdo amxaaro orma kaliyana maxaan ku dhahay uma tababari kartid ciidamada cirka oo diyaaradii haday noqoto kuwii magarasa qalabkii ee hawada cirka sheegaya kii kale maxaan ku dhahay wixii oo dilada ciidamada cirku way qayb badan yihiin haduu leeyahay Soomaalida aad uga faa'iideysid oo halka garab aad ka dhigateen wala soo dhaway oo ciidamada cirka markii la yiraahdo hadii bayloodiya ku jira waxa ku jira magarasa ku saraakiisha waxagaysa ee diyaaradahan iyo waxan iyo qalabkan waa aqoon sideedaba jaamacada looga baxay way hadii arintaasi uu qaybta cirka dadka ku darayo waa soo dhaweynayna falilah alxamdu waa Soomaali ka faa'iideysatay oo mustaqbalka waka Tigraygu bas intay ka faa'iideysteen Itoobiya intay ka faa'iideysteen maanta isaga celinay taangeed ugu faraha badnaa markii ciidamada makalakayaaga la geeyay way dhaqaajin waayeen ciidamadii TPLF jabhada ahayd ayaa dhaqaajinay isuma dhiibanayaan taangiyada casriga ruushka laga soo gaday maxaan ku dhahay diyaaradaha maxaan ku dhahay isuma dhiiban hayaan hubka noocyadiisa kala duwan isuma dhiibanaya barkii ayagaaba dawlad ahaaba hadii marka noocaas oo kale Soomaalida looga faa'iideynayo maanta intuu garab ka dhigto uu leeyahay ciidamada cirka bayloodada iyo kuwii taangiyada iyo kuwii kale maxaan ku dhahay wuxuu cijra iyo kuwii qalabka fadhi wixii baan ka faa'iideynaya Soomaaliya haduu yahay waa arrin lagu farxo wanaagsan way kala dadka ku shub Itoobiya xilli ay burburi laga warramay wiilashaas waa wiilash Soomaaliyeed oo bari ka maalin u baxsan deegaanka u baxsan inaga inoo soo haraya soo aad gartay ma markii ugu horeysay ba intuu Mustafa joogay hadda isbedel ku dhacay yaan arkay laba wiil oo Soomaali ah oo diyaaradahan shibilka Ethiopian Airline ama Ethiopian Airways waxaan ilahan ku soo baxay waligeedii Allah nimankii Tigrayga cadawga ah umada Soomaalida hal wiil way ba ka ilaalin jireen maxaa lagu tababari mid taanga kaxay way ka ilaaliyeen mid diyaarad kaxay way ka ilaaliyeen mid shibil kaxay way ka ilaaliyeen cadawga umada Soomaaliyeed bay ahayd hadda deegaanka kaliya ma Soomaali cusurka Soomaali oo dibcad ku ahay waan gartay wixii jawaasiis ayagu adeegi jiray mooyaan laakiin umada Soomaaliyeed ee qumman ee islaamka cadow bay ku ahaayeen waan gartay abiye marka iyo orma afguduud haday maanta leeyihiin Soomaali garab baan ka dhiganaynaa oo awoodan heer federaal baan wax ka siinaynaa ama ha noqoto ciidamada federaalka ha noqoto ama ha noqoto maxaan ku dhahay federal police ha noqoto ama sirdoonka ha noqoto ama diyaarad wadista ha noqoto aduu qaybaha haday tahay waan soo dhaweynayna waan gartay nin aan malaynayo inaadan aqoonin oo waxa jiri jiray sheekh caalim ahaa oo deegaanka Soomaalida macruuf ka ah nin reer garbo ah waxa loo oran jiray Allah naxariistay nin halgaba ah oo aad qaali aan u ah sheekh Maxamed Xikam baa loo oran jiray sheekhaas marka wuxuu yiri hadda koor buu waa hore wuxuu nin aqli badan buu haay wa Ethiopia maxaan ku dhahay waan la dagaalanay 1963 waan kula dagaalanay baasha la yiraahdo wajaale iyo dawladda Soomaaliya way kula dagaalanay deegaankana waxbu ka hadda dagaalka ka ah Nasrullahna waa kula dagaalanay maxaan ku dhahay jabadii ugu horeysay WSLF waan kula dagaalanay dawladda Soomaaliya iyo kacaankiiba taageeray oo la fursad 9 sano dagaalamayay way kula dagaalamayay nimankii ayaga laftooda iska qaribka ah barbarka ka raraa itixaadka la oran jiray iyaguna waa kuwii ka dagaalamay war wixii waligeedba deegaanka Soomaalida qoriba maxaan ku dhahay gobolkan ogaadin qoriba kama damin hadii waxa la yiri gacantaad gooyin weydo waa la shumiyay Soomaalidu ku maahmaahda ama waa la dhunkadaa
haddaan nimankan caloosha u galno oo ciidamada saraakiisha wax ka noqon oo maxaan ku dhahay kuwa bayloodad cirka wax ka noqon sida Tigreega laakiin waagaas waxa way curdan bay bahaayeen oo bahashan aan ubucda u gallo war waynu ka adkaanayna ama way burburiya waxa weeye kuwaas meesha inoogu jira yaaba hadii sirtii wax walba kala soconayna bahasha aan gudaha u galno bahashaas marka haduu Mustafa soo jeedinayo war bahasha gudahan u galayna oo banaanka kama taagnino xaaba manahine gudaha u galayna waa aqal socdo way deegaanka Soomaalida inagu waxa weeye sideeda cadaalada ka hadala madaxweynayaasha Soomaaliya hadda kor wataan neeri ma garanaysaa waan ka hadli doonaa mayna ka hadlin barnaamijkaas wali baaritaanka iyo baxsigii baan ku jira laakiin si hordhacan ku sheeg dadkuna wax hadaan been sheegayno commentiga ha noogu soo qoran hadda run sheegaynana hadda waa runtii ha nagu taageereen laba madaxweyne ugu liitay laba madaxweyne ayaa ugu liitay waxay ku badashayna lama garanayo waa Khadar Macalin iyo Cabdile Khadar Macalin iyo Cabdile midu 20,000 oo wiil baa ku maqan oo meeshii baadhaba ku baabaaday Khadar Macalin markuu ka soo noqday 20,000 geeyay waa laga qaaday xilkii wuxuu ku badashayna ma jiro war ma la soo bidaar xumaanina 20,000 oo wiil ee jabiyay Eritrea jabiyay markaan afguduudadii jabin waayeen annaga jabinay maxaa ugu badashay Muuse هذا ما نوجد ما حد دبك ما يا دبك كوبا قال شربنا قال لي ما حد نقول بدش موصلي ما حد قالوا ضد كسي موصلي ما حد شمع عضو نور موصلي ودويل ما حد نوصل موصلي ما حد دبك إيو ما حد كل هاي مقدو اللي ويلش يروح ويان هو يدي بحلقة بحي طبعا هلاد يقول بحلقة بحي ما حد والدون تصينا أيوة وضع وعلن وضع خربة يلا سعودي واجد ذنب وحلو واحد بدين شر وانقرنا يا مقالة شجع جودي هذا الواحد بدين شر أبدي إلينا هذا الشهيد باب ضحي لبر يعني لبر هذا قدام بيا لما ده مدحوين كجلين وانقرت داود أمحار بسرعة والله مركز الحركة جلي مر بس فعلوا الشكين دوناي داود أمحار وحياه وكو عم بحي مركي أن سراكيش يدك الدولة ديان كي عقلادي أن وحويدية تاريخ دي عندي براعي وحكو عم بحي وحول يدك الدولة ديان كالصومالي دقن حق وما لها إلا شقالسيو داود أحمر براعي داود أحمر براعي وواجه الشقالي سيو يتردي وفرها بدنيد إثيوبيا الدجان كلا قر ويلش يكسر بحي جامعة دلك إثيوبيا يكوي باكستان السودان هندية محن كلها السعودي ماشي اللي يراهدو مصر الدجان كأول الشيء وواجه كهول ليوي انت اسكت قف القريه انت شقيني سيبا لا قدري انت شقيني ايا لا قدرو كهولش waxa asaguna soo raacahayo kalanta afraad galahaya لقول مايا نكيل أورنجري عيد داهر وأسوق دولك وفرها بدنا ومجال هذا بابيلي أما تقبل بابيلي اللي هذا واجي أي بحضي عنك محاكم أورم يلقوا ريتشيوي هاي سو واحد قلت ما قال هذا صورت وحويا عنه ومن حريصناه وحوي سيدا أوكليين وبقول تلمامي ناي هرتوا واسيداس وانقلت لكن مربع سفي عن وفاقد دون وقف لون دورنا أوكي دي بنقول صور قرية waxaan dib ugu soo noqonayaa hadii marka Mustafa Dalabidaar buudiga ka xunay Mustafa Dalabidaar buudiga ka xun akhasunaas idil busaurus derbijiifo idil busaurus kuba ku ka tayo xumaa busaurus isaga un baa la dhihi karaa Itoobiya uu fahansan yahay isagana kursi jacayl baa wax walba dhaafin Xasan Sheekh Maxamuud baa waxaan nidhi xoolahan aad arkaysaan waxa u geynaya xoolo uruursiga kursi walba oo dalka Soomaaliya macna u laha oo dhaafsanayo buufus hada waa kursi walba baqarmada midoobayba ma midowga Afrika ma urgoboleedka igaadba marka waxaan u maleeyahay xaafadiis inuu iibsan doono wiilashiisa inuu iibsan doono u maleeyahay wiilashiisa inuu iibsan doono u maleeyahay haduu iib ku helo kursiga dhaafsanayo Mustafa marka dhanka kursi jacaylka Xasan buu karimid yahay laakiin Xasan wuu ka diblomaasiyin wuu ka aqli badan yahay حسب كعقل بيقول كذب السواية وحن ونقاشنا يا مصطفى مركه هدو هلي لها تيم في عن الله شقينا ودم محن كنا إنما كتضامن كي هذا ماشي اسكو حيري ودول الدجان كالصومالي ده تضامن كان إلا تضامن بدول الدجان كاستيين يروح شواسيسة أنت هسوق السوق مصطفى أنت هدي بيكوس ما يقول يحدوس لهين مصطفى متحول قمن بنقول له لكن والله بقى يبودوي وإن أخصنا سو عبدي لي النظام كيكسو هراي يكون تولين كتليا مال بكتليا إن تضامن هو حوي ولالك هدوك هجيسين يسو تضامن لاهين كوبي ياسين ماي
كيف كورا walaalkii hada waa walaalkii haduu dhimanayo oo uu gaajaysan yahay waa aqeedadooda bad koob shaah koob biyo asiir usmaayo waan gartay nimankaas marka dawladii deegaanka gacanta u galiyay waan gartay madala waxa uu helisaan u malaynayaa koox yar oo u malaynayo 6 iyo 7 inay yihiin oo xilligii nidaamka Cabdiile intay xaroodeen oo asigu soo dhaweysto waa nimanka ugu musuq yar inkastoo musuq hadda bareen waa nimanka ugu roonay ma garanaysaa talada dalka يعني الحجالة بقى كايس الحجالة بقى كايس إنك صلفت جود قارح أي كوتشرا هرت أنت هس وأنت حدي مركب برنامج كإلات دير هذا محن كل هاي الدجاج كالصومال ذي كان لوجا فايدني والدين تسوق اللي هي قاركود نلاص حلو ومحلنا هاي ويلش هنا بيرودي هذي نقدان هذي الدجاج يوم الصومالية الدجاج في عيان هذي كاريال يوم بيبيض نصير لون قاعدين يوم محن كل هاي قلب كلام بره هينا فلله الحمد لله كاسي في عن هذي سراكيل حجان لا توبر أبي عيد كلامات تسكوها اللي يمي ترتي هذه الله تعبر هنا هذا هو سركيل إننا ناس كردي وي يدت كاس داية ووالدينته هذا يستطيع دبك كشبة قاية والباب والبقراء ويلش إنك كذا بتجا أو مجرنا يسمى له كديننا انت هسي وانت هسي هرت وانت هسي وحكوسو حري أدي إبه كوسو ما أقول يا هاي قلب كاسوت الكاسم كدلينا قلب كاس هالكاسم كدلينا وحكوا صاري الصومالية يدير دول تجينا عبدي نكل أورجي بروفيسور أنت دعوتي عبد إسماعيل سمتر وحولي دولة هورية وكدروا دي بدل كدروا دي بدل قال له تنكم ما هي الإسلام بقول كده هل واي وهل واي وقاسوا حي تري إلى هو الكي هذا السين ما بقينا ده إله وحسن إيجا هذا السي وحسن مكوكا ولا ما ينادهينه إله ويلك إيجا هذا السي ومهالمرت سيروا هيدولك إله إيجا هذا السي يوم كده بالهوية أنكو حياتي أيدي بكيري بقى ماشي واحد كوسو هايس أنكو حيب سبحان هاي يور علامة يور إلى علامة سارك إلى هو مسبيك دي بدنا بقول حد حتى قلبي أما الصومالي ويجي نظام كي هو فرماجة سيقول هاي الإله النجا بدل إله خير نوجو بدل إله خير نوجو بدل وحسن نوجو بدل ما بقينا بهم وانجرت إله وحسن نوجو بدل ما بقينا بهم حسن أو حتى وتنكوش هي إنه تويلش أما ضد كلا شقينا أنتو سوق قبته وإيبي كرسي سوسي تشوجو فيرها ولا بحاله كرسي سوسي تشوج يلا عد سوق بدرشو إنه ولا بدأ كويب سلام ويانا وحو حري مجرته وانجرت بل هالك أنت كجا صعته قبل ديفوزينا ماشي ولا جرهبة العجن هو قاعد بالي مثل لا بعد وربان كوشيك ورور كوشيك يا كوشيك نمبا وحول دردارمي ويلكيسي ولا دردارمي ويلكيسي بقى أبو وتجيه واسمنت تريجي سمنت توجي ويا أسوي حاجة أسهل بسوي أب حمر بن هذايا كعان كمية حلق على شيء مسوي كوير دواء أنا دونه مقرني أقول أبو حمر هذا تكتو صاحبك وتكيل صاحبك واتكهلي صاحبك واتكهلي صاحبك واتكهلي يو حدات في عناته ونقوم من الدين تبرتو أو مجرد ساي كتبتي ينتو برتو مساجد قالوا قمنا نقطه نفي عن أو كتبته كلا برتو أو مجرد ساي قمنا الدين الإسلام كي دعوة في ياهلي وانا جاي في عناس هذيك مرك هوري هذيك كود عبر adiga maxaan ku dhahay aan dhalay bay wanaaga iyo kugu dhici marka hore amaanto adiga kugu dhici marka labaadna ana lay amaanay marka saddexaadna warninkaasi uu yahay baa la dhihi maca qabiilkii baad u soo jeedi buu amaan iyo wanaag u soo jeedi buu waxaad noqon buu safiir oo markii nin quman aad noqoto waxa la dhihi warninka uu yahay waa nin reehbal markii la yiraahdo waxa loo maleyn buu wax alla wixii reehbal ama halka ka yimid inay wada fiican oo adoo kale yihiin hadii aad xumaato oo in xun waad ka helo darbijiif aad noqoto marka koobaad xumaanta adiga kugu dhici xumaanta adiga kugu dhici marka labaadna waxay ku dhici buu aabaha bay ku dhici walaal maxay ku stirmeen way ruuxa musu darbeeyay muxuu ah marka saddexaadna qabiilkii ummadaad ka dhalatay يا أي كل يروح مسيرنا إلى سفير بدو ما دي كتاعي هذا مركن فيري أنا أقول لك كونفرو إذيل با هنرها للنقدين بدل ما ندقي ستي كونفرو إذيل بحسن مركن أركي
koonfuro idil ba anigu waxaan ka qaaday wisus baan ka qaaday hay siyaasiga koonfur jooga siyaasiga koonfur marka xasan cali khayr laga reebo hay siyaasiga koonfur jooga anigu wisus baan ka qaaday waan gartay waayo waxaa la rabaa ninku inuu han leeyahay inuu iimaan leeyahay inaad muslim tahay fiiri waxaa la rabaa islaamnimadu waxa weeye qalbigaaga iyo waxa ficiladaadu inay isleeyihiin baa la rabaa waxaad afka ka sheegayso fiiri iyo qalbigaagu inay isleeyihiin baa la rabaa haddii se ficilkaagu iyo qowlkaagu isdaba marsan yahay dani baa waxaa laga sheegay حسن وحكى لكم أن ريبوت لنا وسياسي وصاحبنا يا وحولي ومحنك سعد وقف قاتي بانكوني وحول أفكو وحول كله يجي قلبك اسمه وافق سرع بالتبدي ورنتي هاي أنا دني دبك تاجر سلمي أهين ودولة هران يعني كل علوي مركو لا دجال معي وهي حقوق بدي هي ودي لكن دني هذا الكوشيء يورنتي سبته محيط هاي حسن مركو أمام مسام مورع أمام مساج في كسر هلا هايو وحوشيء يفعل هذا أي نوشيء يعني سياسيين تناقص حليل هاي اسمه هاي اسمه وكافي كلا ديروي وانقرت حسن وحقول من كليه وحويه إنه وليش يبسده بسو وانقرت oo kursiga lacag ku badasho waxaan rabnaa bal inaan dib ugu soo noqono kursiga African Union bal arintaasi ku soo dhawow farqada kursiga Union African Union waxaad moodaa gabi ahaanba in Soomaalidii uu ma tahay wax rajaa ah ka qabin ayadoo maamulka Soomaalidu ama dawladda Soomaaliya ayadu mas'uuliyadda ay qaadanayso waxaan ogsoonayn Fawziya in ay dadka ugu cadcad kursigaas horta ninka la tartamay ugu dhawaa waa Raila Odinga iyo Fawziya markii isbarbardhig la sameeyay Fawziya ayaa ka taageero badnayd oo boqolkiiba maxaa la yiraahday ugu yaraan 67 way ku hogaaminaysa ayadana u rajaq waana wadaniyadna way ahayd saan codkar ahna way ahayd laakiin maxaa dhacay waxa ku fariistay maamulka dawladeeda ku fariisatay hadii dawladeeda dirka waran la dooran anaga nama matasho qibiba nama matashaba ayada hatta waxa loo sheegay hadaad ku sii adkaysatay inaad sharaxdo Soomaaliya wakiilka mati totaliba عاوش شقيستها هاي برنامجيس قبل إني يجيب وقبل اللي بعد يسألون يجيبيه ما فهمتي قبل اللي بعد يسألون يجيبيه واحد أنتم مامور حسن محمد يمين مركب حد من ده مامور كدولة الصومالية أنا أيوه وحول قرط والدنيا يو ضل كان أو ما يقام كيس يمش كراست عالم الوتر تم وحكوي يشوف أنا أقالها أقول العقد يعني مدة نوك ولا فهمي حتى مركل الفوزية إنه تغير بلانا جاتو أحير دبلوماسيين تي يهجمياش أفريقيا ولا إلا سمايسين إتوقع حتى على نقالة إنسينو في الصومالية هاي وكي حسن ويمد كينيا كينيا واتغانا وضيع الرئيلة دورشة دول كينيا وأن تغير بلانا شعب كله هذا السياسي كله أو معارضة مجرو وروت كرسي سياسي ويداري كره مجرو أما سكسو ليرين كره مجرو رئيلة أمبوها رأينا الرماش الله في مرة رأينا وين ميدو وافق الله درو كرته سعنا وين كهرب أساس تويتو أنا ماشي كبر لي تويتو الواحد سرطان أشكت تقول هذا حسن يوحيد هم بالليري حسن دانو سوى حودر نقارة ودر مكت قول لي يقول بهربا أنا أقول سنا بقردو كهذا كنا مش مبصور كأقول الجنين تقول لي وحال يري هذا الكلام ما غير هاي هاوش ماشي حسن كشيء ما عمر كدولة الفدرالية الصومالية حسن جمعية المسؤولية قاعدة حسن هو كل بكسوان أرتو وربا كوشيجيا أرتو قبلنا فوزية أرتو ومركان حوجي روح عن حقوق تاجر وموجنا يسياسة هذا عرفتوا وإسكما أمان عنو تدفر بدون سياسيين وصاحب الله والدبلوماسيين والدولة كوي هركوتشري يكوا دمبا وان آد بان مقرنا يسها يعني أول يستها قبلنا حسنيه مركان ويدي آد بالله يقوا أماني فوزية حاجة آد بالله يقوا أماني وقبل آد ودريدو أبالله يقول قبل دواجي أنت يا ريدا المسيرك أدمي دبده أيها وجيد بن هاي سومالي وقبت مثل بعد دول الفربادر والدولة دي هو رأينا عيسى نظام كي هو حسن الشيخ عينا عيسى يصوب إنك تو ديدي هرت قبلها الصوماليات يجا بكون دني السلمان ترك iyada iyo gabadhii kale maxaan ku dhahay wasiirka waxbarashada ahaan jirtay muxuu ahaa ila qaasim maxaan ku dhahay doctor iso magaceedu waa iga maqanay gabadhii casay maamadi casay مريم قاسم iyo Fawziya Yusra Abrar horta markaad fiiriso labeenta dumarka Soomaaliyeed ee maxaan ku dhahay dawladii wax ka soo noqday horta rag way boqolkiiba 90 bay dhamaanba waan gartay
waddaniyada ku dhaamaan musuqay ku dhaamaan waxay ku dhaamaan hadii bay ku soo ogol yahay ee dal jacaylka ku dhaamaan waxay ku dhaamaan horumarka iyo waxyaabahan may ku dhaamaan hada fiir ee Marya Qaasim oo kale wad ogeydba khudbad u dambeysay jeedinaysay qof walba Soomaali uu daawaday marka horta gabadha waan u tacsiinayna waxaan leenahay wax ka khayr badan Allah ku siiyo boos ka khayr badan Allah ku siiyo ayadana waxa ku dhaliilahaya oo dhaliisha ku leedahay كل عبد إسماعيل سمطر لفتيجي سون رجعها يالها النقاء شاري وحوري برنامج كوحلا لو جمع عدري لما يود نقاء سويري حسن بقولت شيء أسرع بتحسنا يجوا وبقف دمرة لكن أنا بحلها يا عبد إسماعيل سمطر بأروج وأروجارت إنه فرماتش لا مرت أروج وأروجارت dad badan baa ma garanaysa farmaajo team goor ka tirsan kama tirsanayne qoladaas waxay qabteen ma ku taageeray qabiil kuma taageerin aanu ko marka Abdi Ismaaciil Samatar iyo ninka lagu magacayo gabadha lagu magacaabo Fawziya Xaaji Aadan labaduba markuu Xasan soo baxay dhigtay afka u saarayeen oo u hambalyeynayeen anigu waxaan iri war ninku soo ninkii ma soo nin kale nin Xasan ninku soo ninkii ma war ninkaasi waxba afka dhigtay u saarina wala ana idinka ولا أنت أنا كبرتي ذيك بسياسة تقول حجري أنت كبرتي يعني حسن يوفر هذا وقع عد إسماعيل سمطر ما توقيل هي فوزين وتهدم هذا الركن لو قلفتي أنا والسومالي سيشر جراية أنا وحندونينا برنامج كوعي قلين ومد الصوماليات وهجاكتان دونينا ومستقبل كالصومالي وإفيان دونينا قلنا ديرة ترى الدم جديد إبلا الصومالي كوها بستي النظام كان محام كل هاي 93 92 باللوضي نول بيسجل حرن عقيدة عن محام كل هاي نول بيسجل حرن سيدي اللي حروب لها أمد الصومالي أي هجام قمن يدل قمن أمدها عالم كقال يا مسلم أولا ترتمي هايين بانو دونينا وقبيل يقبيالة يقولون هذا فير وحنا نركها هي برنامج يدلوا لقى السماية قبيالة تيك توك كسعة برنامج كمحان كلها قد أقول بهاش كونفورتي بقى تسيد الشيء إلا بهاش مكتوب بصله بهاش بقى تسيد الشيء مركب واحد صغير بهرت الله دجال بيننا وحلينا الصومالي هالنورات عبد تحليل أو كم ده هنجري الفنانة دي وبري صوماليا صومالي بالي أبو نيجري صوماليا بالي حتى حلينا الصومالي بقى اسكال برنامج سيشر كريم فوق الجارسي